markii maamooyin kar soo ceen hooyo ani hooyadii xaqlo joogaa soo ceen maxaa jira xumaanta maxaa waay hooyo been waan ku dhana waxa wax ka jira ma waxa kale oo jira YouTube kale oo ka hadlay arooskaada iyo arrimaha ku saabsan in ninka aad kala tagteen bal arrimahaasi maxaad ka oran lahayd fanaanada Rasmi Rays kullu si wanaagsan waa la because wixii way arkeen laakiin wax fiican oo si wanaagsan oo gaarayso laakiin asaga message soo qaatay xurada cadaan iga gudtinta ani isoo wareystaa cadaan la idin Rasmi Rays cadaan kar kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelkan xaqiijinta wararka maanta barnaamijkeenu waxa uu noqon doonaa falanqaynta fanka oo ku soo qaadan doono fanaanada Rasmi Rays oo beenisay wararka baryihii ugu dambeeyay social media wareegay oo ahaa in iyadoo ninkeeda Farxaan Yare ay kala tageen oo iyadu kaligeed ay dhigatay aroos fanaanada xaqiijinta wararka ay la hadashay waa inay beenisay arinta fanaanada Rasmi Rays waxayna sheegtay in iyadoo ninkeeda Farxaan ay hadda isla joogaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka like saar fanaanada Rasmi Rays oo beenisay inay kala tageen ninkeeda Farxaan baryihii ugu dambeeyay ayaa social media qabsaday in fanaanada Rasmi Rays iyo ninkeeda cusbaa ee Farxaan ay kala tageen laakiin arintaasi ayay fanaanada Rasmi Rays ay beenisay fanaanada Rasmi Rays ayaa 14 December ee sanadkan 2019 ku soo dhaweysay magaalada Nairobi ninkeeda Farxaan oo lagu wado arooskooda inuu ka dhaco ninka Rasmi Rays ayaa lagu magacaabaa Farxaan Yare waxa uu ka mid yahay fanaaniinta reer Hargeysa wuxuuna ka soo jeedaa Boorama fanaanada Rasmi Rays ayaa sheegtay inay la soo xiriireen waalidiinteeda iyo waalidiinta Farxaan waxayna ku dhaheen Rasmi Rays maxaa waayo cadaawadeedin ka dhaxaysa Farxaan Yare oo dhawaanihii ugu dambeeyay aad iskuursateen fanaanada ayaana aad ugu xumaatay arintani social media laga wareejinayo fanaanada ayaa sheegtay in si toos ah u soo fariisan doonto YouTube-keeda iyo YouTube-yada kale ee Soomaalida ee ku sugan Nairobi wararkan laga sheegay fanaanada ayaa ahaa in qoyska Farxaan Yare ay u diideen Rasmi Rays waa ay beenisay arintaasi fanaanada Rasmi Rays waana wax aad loogu xumaado laba qof oo iscalmaday in laga been abuurto waana dhaqan soo jireena in Soomaalidu ay ka been abuurtaan fanaaniinta sanadihii ugu dambeeyay waxaa laga been abuurtay fanaaniin Soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyayna waxaa laga been abuurtay fanaanka Dayax Dal Nuurshe iyo xaaskiisa Farxiya inay kala tageen waana wax aad loogu xumaado in family laga been abuurto isjecel fanaanada Rasmi Rays ayaa sheegtay in arooskeedu sanadka cusub lagu qaban doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa kale oo ay sheegtay in fanaaniinta ugu waaweyn ee Soomaalida ay ka soo qayb gali doonaan arooskeeda fanaaniinta hadda isku diyaariyeen inay yimaadaan arooska Rasmi Rays waxaa ka mid ah iyo fanaaniin kale oo badan haddaba meherka fanaanada Rasmi Rays waxaa ka soo qayb gali doona mas'uuliyiin aqoon-yahano iyo shakhsiyaad caan ah oo bulshada dhexdeeda laga yaqaano fanaan walba oo ka soo qayb gala arooskeeda waxaa laga dhiibi doonaa tigidhka uu ka soo goosanayo dalka uu ka imaanayo lacagaha ama qarashka arooska ku baxayo ayaa lagu qiyaasay lacag fara badan Rasmi Rays ayaa ka dhalatay beelweynta ogaadeen waxaana adeer u ah Axmed Madoobe halka Farxaan uu ka dhashay qoys taajir ah halkaas oo ay ku suurta gashay in arooskooda noocaas uu qabsoomo marka lagu daro meherka qarashka arooska miisaaniyadda xafladda arooska waxaa la qiyaasay in lacagta intaas ay ka badan karto Rasmi Rays ayaa laga yaabaa in rikoorka ay ka jabiso fanaanada Nastaxindo oo qarashkaasi qarash ka badan gelisay arooskeeda iyada iyo Xuseen Biite oo arooskooda ka dhacay dalka Norway oo fashilna uu ku soo dhamaaday arooskaasi Nastaxindo ayaa ahaa aroos noociisa hore loo arag ku dhigatay dalka Norway laakiin nasiib xumo fashil ayuu ku soo dhamaaday waxaa fashilisay xaaskii hore ee Xuseen Biite oo hadda ku sugan dalka England ee caasimadda London oo hadda lagu wado in arooskooda labaad uu ka dhaco magaalada London sida ay shaacisay fanaanada Nastaxindo baryihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay fanaaniinta iskaabulada ah inay guursadaan waxaa jira fanaaniin ku daahay iskaabulnimada sidoo kale waxaa jira fanaaniin ku daahay garoobnimada waxaa maalmihii ugu dambeeyay la shaaciyay in meherkooda uu ka dhacay dalka Djibouti fanaanada weyn ee Yurub-Genyo iyo Maxamuud Migane oo ah wasiir ka tirsan dalka Djibouti fanaanada Yurub-Genyo ayaa ku dhigtay magaalada Djibouti meher aan waligiis la arag iyadoo hore u soo guuristay fanaaniin iyo shakhsiyaad caan ah fanaanada Yurub-Genyo ayaa hadda ku sugan iyadoo fanaanada Qadra Silimo dalka Djibouti intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena gaarka ah ee ku eegnay fanaanada Rasmi Rays oo la hadashay xaqiijinta wararka una xaqiijisay
inay been abuur tahay in arooskeeda laga been abuurtay oo la yiri arooska Rasmi Rays iyo farxaan ma dhici doono. xaqiijinta wararka waxay diyaar u tahay inay bulshadeeda ku xiran u soo gudbiso xogo lagu kalsoonaan karo. fadlan waxaan idinka codsanaynaa inta aad been abuur dhihin warbixinaha soo gudbino fadlan soo baar warbixinta. annaga warbixinaha soo gudbino 79% waa warbixino lagu kalsoonaan karo waana xogaha qarsoon. marka lagu yiraahdo xogaha qarsoon maaha inaad hore ka fahanto, waana xogaha qarsoon waxay u baahan tahay raadin iyo waqti badan inaad geliso. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar gambaleelkana furo muuqaalka like saar comment caafimaad qaba oo caadifada iyo xumaantu ka reebtayna hoos noogu reeb.